dawo qiimaheedu jaban yahay caalamka oo dhan laga heli karo ayaa la sheegay in gacan ay ka geysan karto badbaadinta bukaanada sida daran ula il daran xanuunkan cudurka sida weyn ugu faafay dunida loo yaqaan COVID-19 dawadan oo qiyaasta laga qaadanaya oo aad u yar yahay ayaa lagu magacaabaa dexamethasone waxaana loo arkaa inay tahay guul aad u weyn oo laga gaaray dagaalka lagula jiro cudurkan faraha baas dunida weyn ku haya ee dilaaga ee loo yaqaan COVID-19 sida ay sheegeen khubaro caafimaad oo u dhashay dalka Ingiriiska waxay dawadan la helay qayb ka tahay tijaabadii ugu weyneyd ee caalamka laga sameeyay dawooyinkii hore u jiray si loo arko inay wax ka qabanayaan fayraska coronavirus waxay saynisyahannada caafimaadku sheegay inay si buuxda u caawin karto 4 meelood 3 meel oo ka mid ah bukaanada xaaladooda laga qustay ee ku neefsanaya qaabka loo yaqaan ventilatorska waxay sidoo kale sheegeen in cudurkani ka dili karo inta badan dadka uu ugu dhacay sida adag cilmi baarayaasha ayaa sheegay in haddii dawada la isticmaali lahaa markii ugu horeysay ee uu fayrasku gaadhay dalka Ingiriiska ay badbaadin kar lahayd nolosha dad gaaraya ilaa 5,000 oo hadda u geeriyooday xanuunkaasi dalalka saboolka ee dunida oo cudurka COVID-19 uu aad u saameeyay ayay faa'iidada ugu weyn u noqon doontaa maadaama uu kharashkeedu aad u yar yahay